ciidanka qaranka Somaliland inuu yahay cududa shacabka iyo cid kastoo Somaliland ku nooliba ay kaga gamaada cadowga waa dadka ilaaliya ciidan iyo calankan waa dad duruufo adag runtii 30 sano inuu jirnay ku soo shaqeynayay waa dad u soo samray dalkan iyo dadkanba inay nabadgelyo ku naaloodaan waa dad runtii aan la dafiri karayn kaalintooda amni sharaf iyo tixgelin ayaa xisbi ahaan markaste aan u haynaa ballanqaadkii gudoomiyaha waqtiga ololuhuna waa bartiisi oo runtii de gudoomiyahaygu waa nin duruufta ciidanka dareemi karaya waa nin siduu isaguba sheegay aabihii askari ahaa waa nin ciidanka jecel waa nin markastoo safar aanu baxnaba istaaga la sheekaysta galgacal u muujiya wanaag u muujiya siyaasad ahaanna waa goobaha uu doonaya markuu madaxweynaha noqdo in la horumariyo waa in guryo loo dhiso in noloshooda la kobciyo in mushaharkooda la kobciyo in faamiliyadooda iyo caafimaadkoodaba lala socdo horta ahmiyadaas ayay xisbi ahaan annaga nagu leeyihiin marka waxaana la gudboon arrimahan oo kale markay taagan tahay arrimo siyaasiya maaha waxa weeyaan arrimahani waa lafdhabartii qaranka Somaliland uu ku taagnaa waayo dunida waxaanu ka iibinaa waa amni waxaanu meel ku gaarnay waa amni waxaanu hadda gelaynaa waa doorashooyin cidda doorashooyinka amnigeena sugaysana waa ciidankeena qalabka sida waxaanu si sharaf leh ciidanka uga codsanaynaa inay xeryahooda horta dib ugu noqdaan inta bashooyinkoodana hoos loo eegi doono inaanay dhegta cadowga Somaliland leedahay aan la maqashiin dhiilooyin dhexdeena taagan marka ciidanka waxaanu leenahay ciidanow abaal iyo ogaal baa laydinku hayaa kaalintiina amniga dalka fadlan bifadlan waxaan idinku codsanaynaa wixii tabashaa degdeg baa hoosba in loogu eegay xukuumaddu tahay iyagana fariintooda uu faray ee idinku goobihiina ku noqda xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha waxa waajib ku ah inuu u dhag raariciyo u dhug yeesho dhiilada ciidanka laga soo sheegay aanu cid isaga ku hooseysa aanu ku halayn marnaba mudane madaxweyne waad ogtahay dalku doorasho galaya waad ogtahay meesha la yiraahdo 30 sanadood duruufaha ciidanku ku sugnaayeen waad ogtahay gadoodka hadda waxa ay ka sameynayaan wuxuu yahay waxaanu ka codsanaynaa inaad guddi madax bannaan oo baadhiseed oo tabashada ciidanka aad saarto waxaanu ka codsanaynaa inaad ciidanka waxay tabanayaan aad hoos u eegto waxaanu doonaynaa degdeg inaad arrinka madaxweyne u dhamayso waa iyadana waa baaqaasan madaxweynaha u direynaa oo degdeg hawshaas ay nooga dhamaato dhinaca kalena xisbigu waxa uu ugu baaqay saxaafadda dadka baraha bulshada wax ku qora iyo Somaliland inteeda kaleba in arrimaha ciidamada ay hoos u dhigaan isla markaasna ay fiiro gaar ah ka yeeshaan oo aanay boonboonin wax kale waa la isku dhaliili karayaa wax kale waa laga faalloon karayaa wax kale war waa laga sameyn karayaa ama saxaafadda noqoto ama dadka qorayaasha ha noqoto ama dadka wax falanqeeya ama siyaasadda ama amniyada falanqeeya ha noqotay waxaan iyagana ka codsanaynaa inay qalinkooda iyo qowlkoodaba hoos uga dhigaan qadiyadan hadda taagan oo aan la buunbuunin oo bar ayna lahayn aan la joojin oo waxay naga wada dhaxeeya mucaaridka ka ah iyo ka madaxweynaha ah iyo ka muwaadinkaaba waa wixii ay wada ilaashanayeen oo nabadgelyada ahayd waa ciidankoodii waa calankoodii waa ciidoodii in laga midaysnaado waxyaabaha qaar baa muhiima oo qarannimadeena taabanaya marka iyagana waxaan leenahay arrimaha noocana yaan la buunbuunin yaan cadowga la maqashiinin waxaan jirin yaan laynaga faa'iidaysan dhexdeena waxa weeyaan halgan adag oo 30 sanaaba la soo galay imikana waxaynu galaynaa halganka kuwiisii ugu weynaa oo doorashadii baarlamaanka 15 sanadood aynaan qabsanaa oo u baahan feejignaan fara badan oo u baahan diyaar garow badan oo u baahan dawladnimo adag marka waxaanu shacabka iyo qorayaasha iyo saxaafadana leenahay arrimaha hoos aan u dhigno oo aynaan yaan wajhi siyaasiyeedana laga day Somaliland waxaanu rajaynaynaa xisbi ahaan guul waxaanu rajaynaynaa horumar waxaanu rajaynaynaa doorashooyin xora waxaanu rajaynaynaa itiraaf waxaanu doonaynaa waxa maanta taagan
iyo baylahda ama bulshada ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama wax kasta ha noqotee inaan wax ka qabanno cidda wax ka qabanaysa ee ballan qaaday ee hadashay ee aan wadnaano waxa weeyaan hogaamiyahayaga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro nin naxariis leh nin duruufta ciidanka dareensan ninta dalka dareensan nin dal iyo dadba doonaya inuu isku wado marka ciidankana waxaan ugu bishaareynayaa waxa idin soo socda hogaamiye idinla duruuf iyo dareen noqon doona ballanqaadkii horena waa bartiisii xeryihiinni ku noqda dalkiiyo dadkaba aynu ilaashano wixii tabashaana madaxweynuhu inuu degdeg u dhamay aad baad galeen adiguna